Soomaali ayadan isgacan qabatay ku fiican tahay isgacan qaban insha Allah taala bye bye aadi aadayaan idin rajeynayna cimri dheer iyo caafimaad heshiin dhamaantiin iyo nabad waarto gacmaha isqabsada insha Allah Soomaali weynay xubna dhiilan dheelitiran dhaxla soo haydheero jogla midab dheer dol cadantay dhakasiisa lay dhaqaaday dol cadantay dhakasiisa lay dhaqaaday السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي يعني سلام يا أصحابتي تقاليقا كحرن جنكي فرحي لكي وفرحي لكي وإذن له مالي وناكسن قلب وناكسن إن شاء الله تعالى إن دب أيان اسكوكس هنا قلنا ما أنت حنصودو بدونا فيديو ير oo isku jira hambalyo iyo waxyaalo kale oo xasaasi ah markaas taagana ka hadlaan rabo waxaan hambalyeynaya wiilkeerka ma sha Allah furfuran oo yani ani aqoon gooni oo malihi laakiin inuu youtuber yahay hadana qof aan taageero oo inta badan asaga iyo saaxiibkiisa Munir iyo maxay ahayd aan fiirsado run ahaantii sida ay isku wanaagsan yihiin isku qalbi fiican yihiin aan maxay aheedo aan ku taageero wiilashaas waxaan leeyahay liban insha Allah taala waxaad noqotay saygii sumayo insha Allah taala waxa laga rabaa inaad gudatid waajibaadkii xilka ku saaran aad noqotid raga kan ugu fiican waliba rahantii waxaan jeclaystay in aan arooskaada farxadiisa kula wadaago hambalyadana kula wadaago waxaan ku leeyahay insha Allah taala isku waara ubad qeyr qaba kala hela noqdo hooyo aaba fiican insha Allah yuusan noqon jaceylkiina madaxiisa uun ku dhisan insha Allah taala mas'uul nin qaaday oo laga sheekeeyo noqo insha Allah raggu markii ay fiican yihiin oo xaasaskooda ay aad ugu wanaagsan yihiin run ahaantii aad ayaa dadka looga dhex aqoonsadaa waana wax qurux badan inta badan rag aaminsan way jiraan markii maxay aheedo la guursado dumarka xoogaa hadii loo naxariisto in ay doqonnimo tahay laakiinse waxaan ku dhihi lahay kulay waad aqli badan tahay aqligaadu ha ahaado mid aad reerkaada insha Allah taala ugu turto maadaama aan ka weynahay maadaama aan maxay aheedo reer soo dhaqay nimanku kan xun iyo kan fiican aan kala aqaano waxaan ku dhihi lahaa soo jeedaada inay ku faanto noqon insha Allah sidoo kale Soomaaliya la dardaarmaya Soomaaliya waxaan leeyahay u noqo soojkaada baari haliyay maxay aheedo u noqo soojkaada baari insha Allah taala dumarka tan ugu wanaagsan insha Allah inaan noqotaa ka rajeynaya waxaan idin leeyahay wiil yaano gabar yaano ubad qeyr qaba insha Allah taala aad ayaan jecelahay qoys Soomaaliyeed oo dhismay hadana qoys Soomaaliyeed oo aad maxay aheedo bulshada looga yaqaano hadana wiil yar Ilaahay waxaan kaaga baryayaa reerkaada kii aad ku najaxdo inuu Ilaahay kaaga dhigo insha Allah taala hambalyada intaas ayaan uga bixi doonaa teeda kale waxaan maanta ku soo qaadan doonaa oo arinta kale xasaasiga waxa weeyaan waxaa jiro hada youtuber badan oo Soomaaliyeed qof walba irsaaqadiisa Allah subhanahu wa ta'ala ayaa qoray markii into adiga wiil Soomaaliya ama gabar Soomaaliya aad gabar kale oo Soomaaliya ama wiil kale oo Soomaaliya aad ka caayaysid YouTube ma aha wax banaan Soomaalideena waxa gadaal u dhigay oo 4 saac horumar la'aan waa waxyaalahaas oo kaleete ani ahaan waxaan dhihi lahay Soomaalida hadii YouTuber tahay iyo hadii fanaan tahay iyo hadii wariye tahayba iyo hadii dhaqaatiir tahay iyo hadii siyaasiyiin tahayba ayaanan isheesanaa wax laga fiican yahay waxaan dhihi lahay aqli waxa shaqeeyo Soomaalidu waxa weeyaan waa inay isdaba qabataa sida tan idan ma ahan maalin walba qof kale inuu YouTube ka dacayadeeyo
siyaasi kala dacaayadeeyo, fanaan kala caayo, waxyaalaha wareegayo oo aniga social media waxa wareegayo aan iscayna aan isrifna wax walba isku soo Soomaaliya nahay maadaama adiga gabar Soomaaliyeed aad maxay ahayd ina caysay ina aflagaadis iska mudneen ina caysada cayso waa wareen hadduu suubil Soomaaliyeed ina caysay ina aflagaadis oo ka mudneen ina caysa ina maxay ahayd aflagaadisa oo wax walba aad ku tilmaamta waa ku ceeb marka waxaan dhihi lahaa sidan dan ma ahan aan isbar qabano bilaa caleege Soomaalida waxa waa isbar qabato teeda kale waxaan dhihi lahaa kelmad kale aan ka dhawaajinayaa oo ku socoto walaalkay xasatoob aqoon uma lihi inkastoo hadeertaan aan isku degmanahay isku dhownahay hadana ani wax aqoon uma lihi laakiin waxa dhihi lahaa xasatoob qof walba oo aad adiga maanta soo cansartay qof walba oo aad adiga soo gacan qabatay abaalkii shala aad u gashay mid aad gadaal u la noqotay soo noqon waxaad sameysaa insha Allah taala wuxuu sheegay Aways Cali Baafo aniga run ahaan iyo been xitaa Ilaahay ayaa ku shaqo leh laakiin wuxuu sheegay inaad jirdil u geysatay askar ku dalbatay maxay ahayd waxyaalo aan akhlaaqda iyo islaamnimada ku fiicneen aad u geysatay waad ka daqnatay shalay walaalka ayuu ahay koolo dhuuqay waad ka soo bixisay qofka inta shalay soo gacan qabatay maanta kuma rabo ku dhigi karaa wax dhiba ma ahan hadduu kuma rabo ku dhahan waxa la dhahaa hortaada u soco meeshii aniga iga fiican ordo aad qofka markaa sii deysid xoriyad aad siisid faraha aad ka qaadid wuxuu arkayaa wixii aad shalay u heysay haddii uu ka reestana waaba ka reestay hadduusa ka reestana asagoo kuu baahan ayuu dib kuugu soo noqon doonaa marka insha Allah taala inta soo iga dardaaran maanta hambaliyay dardaaran oo yacni aan u jeedinayo walaalayga Soomaaliyeed oo maalin walba is haysta is cunayo ayay ahayd marka insha Allah taala waxa idin leeyahay sidan waxa laga bedelo aan gacmaha isqabsano aan heshiino inaan iska cayno social media afraad ka saac is wareejino ma fiicno gabdhiyo wiilal isku qasano is caayo wax walba sheegay waa arkay laakiin ani ma jecli waxaan jeclaa Soomaalida inay hal ahaato in maxay ahayd la is ixtiraamo in maxay ahayd horumarka iyo sida aan wadankeena ay horumar u gaari lahayo kale aan ka tashano laakiin anaga hada isku noqono oo shakhsi isku xino oo qolo isku xino oo waxyaalo aan munaasib ahayn afraad ka saac ka hadalno sida horumar u gaarina ma gaarina horumar insha Allah taala waqtiga idin wacnaado aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabteeda qaaliga waxa idin leeyahay soo dhawaada waa farxii laki waxa idin leeyahay hadaba videogan haduu aad fiirsatid haduu ku qanciyo insha Allah taala subscribe isar like iyo share iyo dheh Soomaali ayadan is gacan qabatay ku fiican tahay aan is gacan qabanay insha Allah taala bye bye aad iyo aad ayaan idin rajeynayaa cimri dheer iyo caafimaad heshiin dhamaantiin iyo nabad waarto gacmaha is qabsada insha Allah Soomaali weynay